nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanow martida soo ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow jaarka ha dhibin walow gaal la ha ahaado ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow ama khayr ku hadal ama iska aamo wuxuu kaloo nabigu leeyahay waman kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyasil rahim ninkii ilaahay iyo rasuulba rumaysanow war qaraabadaada xidhiidhi buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo rasuul haddaad rumaysan tahay qaraabada xidhiidhi buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayo inay yihiin dadka u mudan ee sadaqa la siiyo markaad wax bixinayso dadka ugu mudan ee wax la siiya inay iyaga yihiin waxaa dhacday maymuuna bintulxaaris haweenaydii la odhan jiro oo ka mid ah haweenkii uu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam axaadiistan inta badan saxiixaynka ku soo aroray aan akhrinaya ayaa gabadh yaroo waliida gabadh yaroo ay haysatay oo addoon yar u ahayd ayay xoraysay dabeetana waa iyadaa nebigu la joogin calayhi salaatu wasalaam toogadeedii markuu nebigu guriga wakhtigeedii uu yimi ayay u sheegtay oo waxay tidhi waa sii daayay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low acطaytiha akhwaaliki kaana acdama liajriki haddaad siin lahayd buu yidhi abtiyadaa ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam abtiyadaa haddaad ku sadaqadaysan lahayd oo siin lahayd ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd idan ama abti ha noqdo ama xataa reerka laftiisa ha noqdo xaaskaaga ha noqdo ama islaanta odaygeeda ha noqoto maalan zaynab gabadhii la odhan jiray oo ah cabdillaahi binu mascuud xaaskiisii ayaa waxay leedahay nebigaan maqlay oo nugu leh tasaddaqna yaa macshara annisaa'i walow min xulyikun haweenow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha noqdaane haweenkow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha ahaata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhaasaa markaa waxay tidhi markaan xadiidkaa nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaan u imi bay tidhi odaygeedii cabdillaahi ibnu mascuud oo odaygeedii bay u timi dabeetana waxay tidhi waar cabdillaahu adiguba faqiir baad nin khafiifu daati ilyad nin waxayste ma tihid ee orod nebiga u tag calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray sadaqee waxaad soo weydiisaa war adiga ma kugu baxaysa aan ku siiya bay leedahay waa odaygeedii laakiin waxay leedahay adba caydh baad too wax ma haysa islaantaa wax haysata hanti leh laakiin cabdillaahi ibnu mascuud waxba ma haysto nebiguna dumarkuu la hadla wuxuu yidhi wax sadaqadaysta dabeetana waxay ku leedahay odaygii war adba faqiir baad too waxba ma haysatide orod u tag nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad soo weydiisaa ma kugu baxaysaa haddaan adiga ku siiyo cabdillaaha wuxuu yidhi markaa mayaanuu nebiga u tegi maayo orad adigu u tago soo weydiiso inuu nebiga u tegi maayee adigu u tago soo weydii buu ku yidhi waxay tidhi markaasaan soo baxay dhexda markaan socdaba waxay igu soo baxday bay tidhi gabadh kaloo ansaara oo iyana masaladaydii oo kala wadata iyana rabta inay nebiga weydiiso ninka haddii wax la siiyo ma ku baxaysaadaa labadii dumarabaa isa soo raacay gurigii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markay gurigii nebiga yimaadeenna waxay leeyihiin nebiga aad buu haybad u weynaa markaa waa laga cabsan jiray waanu ka cabsanaynay bay tiri dabeetana bilaal baa noo soo baxay bay tiri bilaal baa waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalam fa akhbirhu anna imra'atayni bilbaabi tasalaanik nebiga u tagoo waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi allo waxay ku weydiinayaan odayadayada wax ma ku sadaqadaysan karnaa sidaa bilaalow nebiga ku dhaba yidhaahdeen iyo agoon yaroo aanu haysanno waa calaa itaamin fii xujuurina odayadayada iyo agoon gurigeega joogta wax ma ku sadaqadaysan karnaa oo ha noo sheegin bay yidhaahdeen kuwaanu nahayna bilaal bay leeyihin hanana sheegin su-aashaana nebiga noo soo weydiiyey bilaal baa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su-aashii buu weydiiyey nebigaa markaa su-aalku soo celiyey wuxuu uhi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su-aasha ku soo weydiiyey waa kuwama bilaal de hadduu nebigu weydiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadha ansaariyada iyo Zaynab buu yidhi
markaasuu nabigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabadu waa badan yihiin markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi ibnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi ibnu mascuud qabay weeye markaasuu nabigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihin yani ajarka qaraabada waa maxay wasilatu rixm qaraaba xidhiidhinna way idiin tahay sadaqana way idiin tahay buu nabigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam